بسم الله مقعيقة وحاوي مدن عدو عمر سعيد MCA هلوقو waxaan halkan iskugu imin inaan arrin warbixin yar ka sameeyno arrin ku saabsan chief Huluqo location-ka ayada ee Huluqo location 6 sano bay chief laan ahayd chiefki u dambeeyay uu ritaagay nin waxa jiray Cabdiraxmaan Shafiic la dhahayo oo 12 sano ilaa 12 sano galhaas uu ka ahaa assistant chief dawladda maal hore matiyaangi wuxuu soo dajiyay nin marba haduuba 5 sano assistant chief ka ahaa haduu chiefki ritaagayo ama uu resign gareeyo ama shaqada uu ka baxo unu asaga dhaxli karo tii maysan suurtagelin shaqada ayada ahayd 3 jeer la soo dajiyay mar u horeysay oo 2017 dhamaashadeedii waa la soo dajiyay 2016 la soo dajiyay 2017 siyaasadda soo dhaweed waa la iska dib dhigay waa la kansalay waa la soo celiyay hadana 2018 interview la galay ninka Cabdiraxmaan ahaa oo assistant chief ahaa yaa ku guuleystay horta intii wali interview la galin markuu nafaaski soo baxay waxaa la siiyay nin meel kale chief ka ahaa inuu acting chief ka noqdo meesha waraaq la siiyay dhiisay horaan tagay oo siyeele ka horreeyay yaa waraaqda bixiyay siyeele markuu umaaday uu arkay nidaamkii iyo wada shaqayntii iyo ninkan suu ugu fiican yahay meeshii waraaqdi actingkii ninkii uu ka kansalay tu kale uu u qoray ninkii assistant chief ka ahaa oo Cabdiraxmaan Shafiic uu acting u qoray ninkii mheshimiwa Safiyo la hadlay qoyskeedu ahaa wuxuu dhahay waraaqdi acting chiefki waa leega qaaday ogow marka qaylay galisay aydiyo siyeele oo nin shaqo wanaagsan u haayay magaalada yaa siyaasi iyo dagaal meesha uu ka bilowday ayada iyo mheshimiwaadi iyo siyeele hadii nin wuxuu ahaa oo cadaalad ah hadii nin lagu tilmaamayo cadaaladnimo nin cadaalad u ahaa oo shaqadiisana garanayo oo degmadana si toos ah oo lilaahinimo ugu shaqeynay actingkii ninka buu ku wareejiyay interview baa la sameeyay interview Cabdiraxmaan baa ku guuleystay waan ogeyn inta saa ahayd qoyskii uu ka dhashay Cabdiraxmaan maamada way la fariisteen iyadoo ku ixtiraameynayeen hoggaankeeda iyo MB-nimadeeda ay u tageen oo ka codsadeen oona ay uga ballan qaaday inay siinayso laakiin wixii waxba iska ma aabin way socon waasay shaqadii way kansashay arrintii anigana waan ka codsaday waanan u sheegay waxay sameysay inay kansasho markaan weydiiyay maxaa loo kansal sababtay loo kansal waxay dhahdeen ninkii siyeele ahay baa waxa leey dhalinyaro yar oo 20 jir ah meeshii soo qorqoray wax interviewga uu ku sameeyay meesh wax ma aragtay xadkii looga baahnay gaarayso ma ahayn sidaas lagu kansalay sida aadweed laakiin waxay dhahdeen ninkan waa un la siinay shaqada mar kale lagu celiyay oo hadda bishii taariikh March bishii 3 sanadkii aan soo dhaafnay ahayd interview u dambeeyay markii bishii 6 ahayd sanadkii u dambeeyay 2019 waa iidan interviewgi ninka ku guuleystay waan ogeyn marka way mari waasay ninkii siyeele inay wax ku amarto ay damacde waana noqon waasay waana u suurtagal waasay siyeele hadana Cabdiraxmaan inuu ku guuleystay noo soo sheegeen guddigii interviewga ka qaaday muddo dhan ilaa iyo bishii 6 ilaa hadda tan la joogo way iskala maqneed hadda shalay waxa noo soo yeeray baaq oo la leeyahay meeshii waa lagu noqon hayaa waa la advertise gareyn hayaa markaan meesha niiga bixinayo warbixin niiga siinayona kaligeed ma aha waxa la soo dajinayo ilaa 12 meel ay ka koobneed 6 meel oo bixise iyo 5 meel oo interest ka lahayd oo reebatay marka dawladda Kenya waxaan u sheegaynaa administrationkii marba hadaabay noqotoba inay shakhsi uu iska maamusho oo sidoo rabo uga dhaqmo uu ka dhigo arrin qoys nabadgeliyada iyo qalqalka ka jira wadanka in lala digaali karin aan u sheegaynaa waxa kale oo arrintan ogeysiyay county commissioner waan u sheegay regional commissioner oo hadda la keenay oo nin cadaalad ah oo aad u wanaagsan oo ay warramay in siyaasad dambe ay gali doonaan arrintan oo ay dhahay jawaab waan ka soo siinay markii ay muddada ay daahday oo weydiiyay wuxuu iga ballan qaaday iyadana in arrintaas siyaasad dambe ay gali doonaan laakiin waxaan leenahay hadda dawlad baaq u dirayna arrinta siyaasadda gashay waayo sakula dawlad soo bixisay oo wasiirkii amniga uu leeyahayba hadiiba mar chief uu meel ka tago dhaxalkiisa inuu noqdo ninkii ku xigeenka ahaa oo arrintii iyada la raaxaynin meel la siyaasadeynayo 3 jeer lagu celinayo shaqo in codsi loo dirsado waxaan leenahay arrintaas anaga diyaar uma nihin waxa hadda aan baaq u dirayna wax kasta oo la sameeyo inaanan ku qanci karin anaga ninaan Cabdiraxmaan ka ahayn meesha in la siiyo dil baan ka xignaa waxaanan ka xignaa aan leena oo runta u sheegayna maxaa sii ma rabi berri ka maalin meel isku qabsana inaan hoggaan ka ahaado ninkan saftiifka sida uu sheegay 12 sano buu sugahay muxuu ahaayay xilkan inuu qabto jiifnimada 3 jeer
بالسو دجيي جيف نمدي هلوقو سدح دي جير عبد الرحمن وحان شاكذا هو سكوينا إلا بني آدم كوس أوجي هاي إن عبد الرحمن دتك أوفي في عن لمبر 1 يكسر باسل إنه ها وحا سياسة جلسي أيضا أوضت كذا لربط الصفية عبد النور يا سياسة جلسي أو أرنتي سود حق شيء امتحانك أجوه الريدي بأطورتي كي لبعض دنا ويتورين كي سدحات با هدنا لا توري حدنا كي أفراد بيتور هيسا كي أفراد بهدنا هلا فالفريستو أو يحور حبك مجران سبب تاسنا وحي أركيسا مركزتا إن عبد الرحمن نمنكي متقانا دولد وشقيناين أو أما ديسياش عين أما كسريين إن كان وحق وليه هاي سيدا درتنا حقي إن كبودي كلن أيضا وحي كل هزيميسا حقا بربورية حق دراء متقاناي معمولة حتى ما شال هذا هذه شفافك أصاب بحين سدح ذي بوح علي شيء أنا حسب أنا كلكتي ونقناي قويس كذي بيكلكتي كلي قد مدة جنو هران وحكاها تشيف حمدي حسن نموي أستن شيفنا إن محمد عبد الله كاها وحوها إساق كي تشيف كي أستن شيف كي كل عضو يكلكتي يكي كلامه waxay hadana rabtaa huluuqo inay ku darsato inta ay biiga tahay qoyskeedana waxay ugu sheekeen sida hadda annaga aan ma taqaanaayay maqashoonahay inay dhaheen huluuqona aan ugu soo wareeji gacanta ma soo wada geeli magaalada huluuqo la dhahona aniga daan hayda ka soo qaad Cabdikariin baan ahay nin iiga badan ba ma jiro ba gacay waxa la yiraahdaa burko shida iidow waxaan ahaa nin oday reer huluuqo ah oo Cabdikariin ah guweygana waa 73 sano jira kumiti business kamidana waxaan ka shaqeyn jiray waligeeyba Kenya maanta bandar saartay ma nabad geliyaan ka shaqeyn jiray haddana waxaan aad uga soo horjeedaa wax alla wixii dhibaato keenayo oo dadweynaha iska hor keenayo aan aad uga soo horjeed arinta Cabdiraxmaan Shafeec 12 sano mise 12 sano saf jiif ahaa uma ka shaqeynay haddii istixaam loo galay oo jiifnimaha la soo qorto la dheena 3 jeer la galay 3 dib lambar 1 u noqday waxaana arkayna inay ku taagan tahay ambida waxaan leeyahay tolka kala dilin ha isku dilin dhibaataha abuurin dagaal yu meeshka dhicin fasaad keen rabtaa aniga gabadha ambida soo dogeedana wiilka qabaabtaan ah xumaan la marbi ayad inay tolka xumaasona marbi waxaan ku leeyahay ka fiirso arintaas meesha ninka xaq u leh xaq u sii laakiin qabiil ahaan u shaqeyn hadaa tiraahdo dadka wax buu ka sawiran ku arkaa tooshan kugu hayna annaka waanan ka xunna arintaas waxaan u sheegaynaa in dawladda ka qarnayn hadii arinta dhacdo Cabdiraxmaan meesha laga qaado inuu luuqo qalaf ka imaanay maxamed yuusuf waxaan u sheegaa doqa odayga anaga tahay nin samooda tahay abaha anaga tahay waan ku kalsoonahay dibka ay safiya abuuri haaso abihi adiga ay joogtaa inaad ka talisan raba oo arintaas wax ka qabato ماشي إنك أساساً شيء هاي هلا سيالة يري دولة كينيا شرعي زوج صارته إنك كوي 8 سنة أساساً شيء هاي صدق قلنا أنت فيه كوباسة ما حكى ورتاج إنه كرب هاي بليس وحنا قاعد سنينا أرنتاس كوانتو هلو قدر إيه لا دقن ولا لا دقن ويسجع لهين قري الضبع هنضح دقن قري الضبع هنقصه دحتورن بليس وحنا قاعد سنينا إن قري قاس طبق كوب بدشوا وحقبض وما دور الليلة تاسان أنفعيسا أذيقنا آخر يدون بخير كوكو جرتا موزي محمد يوسف حاجي دوقا أناقا أن جعلنا هاي لبدا ديستريقنا لقا جعلي هاي موزي وحان هاينا إن هاد ما ركتاي مال هوري سيدان وكالي ميلاهان محال دا إيريادان ما أقانو إن صفجيف سيداس وكالي لدبعي إن لبوستورو جلش تليفون كو حلسي تنا وحان كاربنا سيداس وكالي إنا تليفون كو حلسو لكن مر هداي قردران تاي oo ay fidmad la wareegayso fidmadaas aan ka hadli hayno rabnaa in nagala qabto safiya fidmad wada fidmadaas waxaan rabnaa dawladda uga cabanay safiya inay dawladda nagala hadasho ay fidmadaas naga daaso aan dawlad uga codsan hayna ma rabno annaga Cabdiraxmaan 12 sano kadib hadii la siin waayo 12 sano buu taagnaa oo laga xoogay hadii hadana meesha saacad siyaasad ka socotana waan ognahay 3 goor oo kaamil waan ku imaaday hadii Cabdiraxmaan la sii waayo anaga dagaalan ka xigayna